Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Dowladda Koonfur Galbeed oo ay weheliyaan Xildhibaan Xuseen Cali Xaaji iyo maamulka magaalada Marka ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jaray xarunta waxbarashada ee magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose, waana xaruntii ugu horeysay oo wasaaradda waxbarashada ku yeelato magaalada Marka. Sidoo kale, wasiirka iyo mas'uuliyiinta la socotay ayaa kormeeray iskuulada waxbarasho ee gacanta ku hayso wasaaradda waxbarashada ee ku yaala magaalada Marka. Ugu horeyn ayaa waxaa goobta xarig jarka ka hadlay gudoomiyaha maamulka magaalada Marka Cusmaan Muuse Maxamed. waxaan sameynaa xiriir jirkii xafiiskan waxbarashada degmada taasoo nasiib ah u yeeshatay in muddo oo 6 bilood ka hor la dhisay. maanta xiriir jirkii maanta anoo imaado maxaa la aanoo xiriir jirtay aad u mahadsan tahay. waxaan leenahay zero wixii waxbarashada ka dhiman waxaarna inaan maxaa la naga saacidaa kaarna sida imiska oo kale oo dhibaato ka jirto inaan naga xalisid. sidoo kale arrimaha baab oo maxaa la oo gareeyada maanta ay hogaaminayso lixdii iskool oo dhan ee nolol daran waa ka cuseen adduunyaha waa ognahay baahi badan oo degmooyin kala jiraan waa ognahay laakiin annaga teena ka hadlayna waxaarna in anaga saacido waxbarashada inta naga dhiman annaga insha Allah waxaarna in waxbarasho kor u qaadno maamulayaasha macallimiinta dhammaantood dad maanta heer waxbarasho u taagan waay marka waxbarashada laga soo gaaray. Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Xildhibaan Xuseen Cali Xaaji oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, isagoona wasaaradda waxbarashada uga mahad celiyay dadaalada ay ku bixinayaan horumarinta adeegyada waxbarasho ee magaalada Marka. waaye wasiirka magaaladiisii waaye in macna ii sheego dadkeed ay wax noqdaan mar walba diyaar u yahay. annagan magaaladeena waaye mar walba diyaar u nahay dadkan iyo deegaanadanba oo reer Shabeellaha Hoose qaasatan Marka in macna ii sheego wax allaal wixii dawladnimada ay ka rabaan inay ka helaan annaga u taagan madaxweynaha rabaa inaa u mahad celiyo madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen. madaxweynaha waxa ka go'an siyaasadiisa in Koonfur Galbeed ardaydeedna ay wax bartaan xuquuqad walba ay dadka ku leeyihiin dawladda inay ka heshaa ay ka helaan asigana haween maalintaas uu soo jeeda annagana garawa u nahay. waxaa kaloo farxadii ah xafiiska waxbarashada degmada dhagax dhigeedana goobjoog ah hadana xarig jarkeed goobjoog ah maanta. ilaahay baa mahadaas kale, ilaahay baa na soo gaarsiiyay caafimaad nagu soo gaarsiiyay, ilaahay baa mahadaas kale isku duwaha iyo macna ii sheeg maamulka degmadu iyo dhammaan shacabweynaha xafiiskan idinka iskale dawladdu waa idin dhisti ba idinka macna ii sheeg maqaadinays magaaladiinu ku yaala. waxaa la rabaa xafiiskan inaa ilaalsataan meeshii yar uu ka halaaw inaa samaysataan wax walba oo macna ii sheeg ka dhinaada dawladdu wixii waa idin sameys wixii kale idinka inaa dhamaysataan. Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Dowladda Koonfur Galbeed Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa madaxweynaha Dowladda Koonfur Galbeed Cabdilcasiis Xasan Maxamed lafta gareen uga mahad celiyay dadaalada uu ku bixinayo horumarinta adeegyada waxbarashada, isagoona shacabka magaalada Marka ugu baaqay inay ku dadaalaan waxbarashada. maanta farxad kale noo tahay inaan xarig jarno xaruntii guddoonka waxbarashada degmada Marka oo runtii bahdan waxbarashada ka qabtiri doona dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin oo dhan. sidaas la mid ah oo mahad celinaynaa maamulayaasha iyo macallimiinta la soo dhaweeyay ee xaruntan ugu soo dhaweeyay iyo kulamadii aan halkan kula qaadanay oo ay warbixin naga siinayeen baahiyaha gaarka ah ee dhinaca waxbarashada gaar ahaan diiwaangelinta ardayda oo culeysyo fara badan laga sheegtay iyo warbixinta guud ee waxbarashada degmadanba ay naga siiyeen maamulayaashii iyo dadkii kale halkan ugu soo dhaweeyay. insha Allah tacaala waxaan u ballan qaadaynaa intaan anaga halkan joogno mas'uuliyaddan oo madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen noo idmaday oo ah in waxbarashada shacabka ee reer Koonfur Galbeed aan kor u qaadnana in baahiyooda aan wax ka qaban doono dadka deegaanada Marka iyo nawaaxigeeda ku nool dhinaca macallimiinta iyo maamulka ahaado iyo dhinaca kale ee arrimaha bulshada. insha Allah tacaala shacabkan waxay mudan yihiin adeeg dhameystiran. Maxamed Qadar, Warsan Radio, Shabeellaha Hoose.